inkastoo ay jiraan muwaadiniin badan oo bilaa camal oo shaqo raadisa ayaa haddana marar badan waxaa dhacda in shaqaale kale oo ajaaniba wadanka dibadiisa laga keeno halka qaar kalena ay si sharci darro ah kusoo galaan kagana dhex shaqaystaan Somaliland iyadoo taa beddelkeedana muwaadiniin badan oo bilaa shaqo ahi Somaliland ka doorbidayaan tahriib iyo safrida wadamo kale way fursado shaqo ka raadsadaan dhinac kasta markaad ka eegto tan waa mid dhibaato iyo dhaawac ku ah qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. filimkan kooban waxaan ku eegi doonaa horumarkii laga sameeyay mashruuca shaqo abuurka ee horumarinta cilmiga laba mashruucaasoo laga hirgeliyay magaalada Berbera mashruucan oo iska kaashanayaan hay'adda caalamiga ah ee Save the Children iyo ururka dhalinyarada iyo FENCO ee xaruntiisa tahay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. mashruucan waxaa la yiraahdaa in horumarinta cilmiga laba gobolka Saaxil banaanu ka shaqeynaa hadaan nahay hay'adda wadaniga ee FENCO laba qaybood ayaan barnaa ardayda dhigato tiradoodu tahay 30 arday qolo barata qaboojinta ay tahay ICyada gawaadhida mataqaana ICyada xafiisyada lagu xiray waaweyn iyo ka shaqeynta talaagadaha qaybta labaadna waxay bartaan laxamada ay tahay wax kasta oo wildka ay tahay albaabadii daaqadihii wax kasta oo laxamid looga baahan halkan waa maxadka tababarada xirfadaha ee FENCO halkaas oo ay ardaydu ku baranayaan xirfado kala duwan. marka dhinac ka eegto muddo 8 bilood ah kadib markay ardaydani xirfadaha dhamaystaan muddo intii leeg bay ku qaadataa inay fursado shaqo helaan. asal ahaanba islaamku wuxuu dhiirigeliyay qofku inuu shaqaysto waayo markaad eegto inta qofku uu gacanta ka qabanayo maalgeliyana way ku baxaysaa wax badan oo soo saaraya halka qofka maartay iskuul intuu galo 16 sanadood 12 sanadood iskuul soo dhigto 4 sano jaamacada 16 sanadood ay ka baxayso in la maalgeliyo isla markaana 2 sano ama 3 sano oo shaqo raadinayo 20 sano ku qaadanayso qofku inuu shaqo helo qofka 16 sano wax dhiganaya 16 sanadood wadanku ma maalgelinayo dad isaga la hagaajinay laakiin qofkani 8 bilood gudahood ayuu wadankiisa ka qayb qaadanaya inuu wax soo saarka wadankiisa koriyo qoyskiisa ku filnaado isaguna isku filnaado. cabdirasaaq waa mid ka mid ah ardaydii maxadka tababarada xirfadaha ee FENCO ka baratay xirfada qaboojinta muddo yar oo kooban kadib. cabdirasaaq waa mid ka mid ah xirfadlayaasha ugu dakhliga badan magaalada Berbera waxaana ku booqday goob markaa ka shaqeynayay. waxaan bartay xirfadda kuulinka ama qaboojinta ICyada 8 bilood ayaan ka dhiganayay waan ku dhex jiray sidii aan uga shaqeyn lahaa anigu meesha gudaheeda jooga xirfadan oo ah xirfad magaalada ku yar markan xirfadan waxa ay yaabay ka bedesho wax kamid ah xagga ikamka ama dhaqaalaha waxaan u shaqeeyaa imka si joogto ah xabada ICga wax ku xidhnaa tusaale ahaan $80 ama $70 marmar waxa dhacday inaan 10 mil xidhnaa ama 30 mil nolosha qoyskayga wax ka bedeshay wax badan bay ka bedeshay carruurtaydu anigu dhalay ay dhigato meelaha sarsare ragga taajiriinta ay carruurtooda dhigato biilkooda musaacahooda gaarigooda waxba ka xirfadan aan imka bartay cusub ee 8 bilood dhiganayay ayaan ku ka fargareeyaa. sanadii 1991 ayay ahayd markii magaalada Berbera laga hirgeliyay xawaalo workshop oo lagu hagaajiyo laguna dayactiro qalabka qaboojiyayaasha. Sheekh Cabdi Xirso oo in ka badan 17 sanadood goobtan ka shaqeynayay waqtigan waa maamulaha xawaalo workshop waxaana uu si kooban uga warbixinayaa waxyaabaha la taaban karo ee mashruucan horumarinta cilmiga laba sida tooska ay uga faa'iideen waqti uu goobtan ka shaqeynayo. Xasan Yuusuf oo ka mid ahaa ardaydii mashruucan ka faa'iideysanaysay iyo FENCO wax badan bay soo kordhisay aqoontan farsamadan talaagadaha markii hore dadka ku yarayd horta xirfadan runtii waqtigii hore ma badnayn xirfadan hadii jeer dadka u baahan in aan xirfadan nagala shaqeeyana anaga ay tababaran jiray laakiin intii ay timi iyo FENCO wax badan bay naga caawisay dadka xirfadaha iyada ayaa soo tababarta dabeedna markay noo yimaadaan anaguna iyagana waan sii tababaraa aqoontoodina waan kordhinaa iyagana waan ka faa'iideysanaa wax bay nala qabtaa.
xirfadaha musina waxa weeyaan dadkii marka suuqii la eego dee xirfadii ugu habboonayd markaan market assessment soo sameynay needskii marketkii maxaa laga dhimaa kareen looga baahan yahay ee aan eegno fursadihii yaalay waxaan soo sameynay assessmentka waxaan soo saarnay xirfadaha imika loo baahan yahay muddada dhow xirfadaha loo baahan yahay xirfadaha marka aan keeno dabeetana dadkii aan waxaysiiniyo dadkii saxda ahaa waxaan aan screen ku sameynay dadkii saxda ay doonayay ee waliba u baahnaa ayaanu dooranaa waxaan fursada ku ogaaday anigoo danaynaya ayaan waxaan ku arkay advertised ay xayeysiinayaan in arday loo baahan yahay dhigata kuulinka kadib wax la naadiyay xilligii imtixaanka la geliyay imtixaankii markaan galay waan ku guuleysanay waxaan ku soo baxnay liisaska ugu sareeya saas ayaanu ku bilownay shaqadii oo ahayd waxaan u helanaa ama ahayd inaan marqunka ka jaba keeno ama aan ku shaqeeyo dadkii suuqa joogay waayay meelo kale inay ka shaqeeyaan waxaan siinay fursada waxbarashada xirfadiya 8 bilood qofkii ku qaadanaysa inuu xirfadii barto 8 bilood intuu ku guda jirana waxa awood u leeyahay qofku isagoo baranaya inuu dee shaqaysto maadaama theory ama hadalka badan qoraal dee aan qofku xoog wuxuu ugu fahmeyn gacanta iyo siduu wuxuu u qaban lahaa ayaan ugu badan ahmiyadda la siiyo time-ka ugu badan waxa ku lumiya practicalka goobtan ku suganahay waa xarunta Yofenko ee xirfadaha lagu barto waqti xaadirkan waxa ka socota shaqo waxa dhinacayga jooga wuxuu ku shaqeeyaa waldanka ama arxanka waa mid ka mid ah xirfadaha wax soo saarka badan ee dadku ka shaqeeyaan isla markaaba fursad shaqo hela weliga wuxuu maan alxan xirfada alxanimadana waxba kama garan inta imika waxa doonayaan inaan wax ku sida dibadda ku go'o sidaan u alxamayo waxaad u alxamaysaa marka ugu horeysa marka boostaadi ay baxayso kani waa almaaskayga waa mayniskii iyo balaaskii labadii xarig mayniskayga markuu halkaa kugu dhijisay labadaada birood ee aad alxamayso afkuun baad isu geynaysaa marka koowaad safety-gayga waa inaad soo qaadato muraayadii tan waa muraayadii tanna waa galofsyadii tan waa galofsyadii waa in labada bilood ay isku fadhiyaan iyagoo sidaas ugu salaxan bartaa bartankooda oo aan labada dhinac midna raacin waa inaad ka qabataa ومالتي كوريسي أو الحمل وحرفت الحنكو أي بدين مواطنين بدن غير سومالان أي شقر كهلا سسترتيد وحدونينا إن تجابنو الحنكو فيها halka dhaxa ku meg hawada gaarsiinina dareensi ka dareensi نور وانا جاي مكان حكي واسين marka shaqadan qabto hal cagti dakhli xig kulli shaqo qaybo badan bay leedahay kulli waa shaqooyinka ugu qaalisan ee laga shaqeeyo imika dunida sideedaba waxay yiraahdaan laxamidu waa dhaqaalaha irmaan bal leedahay qofka farsamada yaqaan amaba inta badan amal beelaba waayo waa shaqo aad iyo aad loogu baahan yahay dawlad garanaysa dunida maanta tiknoolajiyada casriga la maraya iyadoo 500 kala nooc oo casriya bay laxamidu jirta iyadoo oxygen jirta iyadoo tanay jirta imika ku shaqeeyo tan imika ah kol dhan baa la dhaawaa mid kale oxygen jirta mid kale iyadana board nooc kale ah jirta marka inta badan shaqada lagu waayo laakiin dalkeenu maadaama inna dal yaroo de soo korayo wali dhaqaale sidaa badan aan haysanin warshadana aan lahayn haddana si kastay tahay Hargeysa iyo Berbera iyo Burcaba shaqadeeda haddana 24 saacadood ku helaysa lacag kuma waayis runtii anigu waxaan kamid ahay xirfadlayaasha alxanka runtii anigu waxaan ka bartay Yofenko waa xirfad aad iyo aad u wanaagsan oo aan jecelahay inaan in badan sii horumariyo hadii Ilaahay raaco isku soo wada duuduuba waayadan dambe waxaa suuqa shaqada ku soo badanaya xirfadlayaal ajaaniba oo tirtan xoogan ugu jira
siday suuqa shaqada ugala wareegi lahaayeen xirfadlayaashii hore suuqa ugu jiray, iyadoo dhanka kalena ardayda mashruucan ka faa'iidaysta ay awood u leeyihiin sida ay ula tartami lahaayeen xirfadlayaasha ajaanibka. inaga waxa weeyaan dadkeenu qofku dee marka uu shaqaynayo xirfadiisa oo garanaya, haddana marka uu shaqaynayo ayaa waxyaabo dhaqanka la xidhiyo inta qofku dee waqtigii shaqada la soo gelayay, waqtigii laga baxayay iyo intaa shaqadu socoto in iyagu isku jeesjeestaan waxyaabahaas oo kan dhan. waxa weeyaan waxyaabaha dadku wacyigelinta laga siiyay markii xirfadda la siinayo ah inuu qofku inta saacadood lagula heshiiyey inuu shaqeeyo isla markaana ballanti ilaaliyo, adeegiina sidii loogu talagalay uu qabto si uu la tartami karo dee dadka ajaanibka oo iyagu shaqaynaya saacadii loogu talagalay, waqtigina aan muxuu ahaye iskaga luminayay. ardayda UFA soo saarta waxyaalaha kaga duwan yihiin kuwa hore waxaa ka mid ah waa arday akhlaaq leh oo dhaqan wanaagsan oo dee akhlaaqdooda iyo tababarkooda si fiican soo qaatay oo aamina oo shaqadiina wax ka fahansan. runtii dadka xirfadaha lahaa ee suuqa hore ugu jiray majority ma ahan dad academically u soo bartay aqoonta, laakiin dad experience ku bartay ama qof farsamada hore u yaqaanay oo la shaqay jiray kadaba runtii dee bartay oo waxaa la yiraahdaa eegmo ku bartay, laakiin schooler aan ahayn dee aan si mataqaana scientific wixii aan u baran runtii dee kala saameyn bay noqonayaan. dadkan soo tababaray waa dad loo tababaray qofka uu wixii intuu bartay tababar practicalkiina uu qaatay, dabadeetana sidii standardka uu qabanayo waxa uu haysana waxa weeye shahaadadaasna waxay tilmaamaysaa qofkaas inuu waxa si fiican u bartay. runtii xirfaddu waa shay qaali ah, waa shay qof waliba u baahan yahay mas'uula, waana sida jaaniska uga faa'iideysato. haddaad jaaniska lumiso uu kaa lumaya, laakiin haddaad ka faa'iideysato oo si hagar la'aan dadka ugu shaqayso oo soo dhaweyso oo aanad ku xisaabtamin koska kaa soo gelaya, haddaad ku xisaabtato baayac inta kaa lumaysaa ka badan intaad ka helayso. marka waxaanu nahay dad ku filan inay ku fargarayaan wax badan. maanta inaad jaamacadda markaad ka soo baxdo inaad shaqo helaysid runtii ma hubtid, laakiin haddaad farsamo gacan taqaano inaad shaqo helayso runtii weliba yoomiya oo baahidaada ay runtii ku kafayso waa shakalaan weyn.